qaybtan waxaan kaga hadli doonaa waxa la yiraahdo index and slice string labadaas aan arki doonaa maxay kala yihiin. ugu horreyn waxaan furnaynaa python intayn hore uga leena waxaan leenahay python haddii aad isticmaalaysid windows fadlan qor python haddii aad isticmaalaysid mac ama linux python 3 qor kadibna enter dheh. intaa markaad samaysid ugu horreyn waxaan arki doonaa waxa la yiraahdo index maxaa la yiraahdaa marka la taagan yahay python. tusaale ahaan haddii aan qoro magac tusaale ahaan waxaa leeyahay comment aan ka dhigaa magacaas waxaa leeyahay Ahmed. okay markii python la taagan yahay Ahmed waxaan xisaabinayna waxaan leenahay a waa index 0, h waa index 1, m waa index 2. marka qaabkaas la xisaabiyo marka xisaabinayna sida anaga bini aadan ahaan waxaan dhahnaa marka xisaabinayna waa 1 oo a ah 2 oo h ah m oo 3 ah qaabkaas oo xisaabinayna. balse markii laga hadlayo computerka laga hadlayo wuxuu adeegsanaya index oo ah 0 ayuu kasoo bilaabaa mar walba tirada wuxuu leeyahay 0 kadibna wuxuu leeyahay 1 2 3 4 qaabkaas oo wada marka qaabkaas xisaabta loo sameeyaa. okay waxaan qoraynaa markaan variable abuurayna variable waxaan soo bixinaa ss kadibna magac ayaan u sameynaynaa waxaan leenahay magacaan siin doono Ahmed Jama. okay magacaan iska soo qaadanaya tusaale ahaan waxaan rabaa inaan soo bandhigo mid ka mid ah tusaale ahaan haddaan dhaho print isoo bandhigtaa variablekan haddii asana maxaa isoo baxaya waxaa isoo bixi doono dhammaan Ahmed Jama oo dhammaystiran ayaa isoo daabici doonta balse waxaan u baahanahay oo kaliya inaan soo daabaco j-daas sida j aan kusoo daabici karaa si markaas j aan kusoo daabaco oo kaliya waxaa leeyahay waxaan xisaabinaa okay index 0 aan ka bilaabina tirada 0 oo a ah 1 oo h ah m oo 3 ah e oo 4 ah d oo 5 ah space oo markaas 6 ah j oo 7 ah waxaan leenahay 7 spaceka tirada waa lagu daraa marka j ayaa leenahay 7 waxaan leenahay markaasi variableka markaan magacaabno kadibna waxaan furaynaa bracket gudahoodna waxaan ku qoraynaa numberka oo baahan oo ah numberka 7aad oo soo bandhig ama indexka 7aad kadibna waxaan leenahay enter. saa aragtaan waxaa noo soo baxay a si ay ku soo baxay aan xaqiijina a 0 1 2 3 4 5 6 7 sababtoo 7 dhahanay 7 wuxuu ku aadan a ayuu ku aadan yahay haddii aan dhahno tusaale ahaan 6 dhila maxaa noo soo bixi lahay j ayaa noo soo baxaysa markaas aragtaan waxaa noo soo baxay j. sidee kusoo bandhigi kartaa markaas eedaas si aan markaas e kusoo bandhigno waxaan leenahay 0 macnaheedu waxay u taagan tahay markaasi indexka koowaad ayay u taagan tahay enter ayaa leenahay qaabkaas ayaa kusoo bandhigi karnaa markaasi waxa loo yaqaano indexinkaas. indexka wuxuu leeyahay markaasi positive number iyo negative number inta buu leeyahay hadda waxaan aragnay positive number 7 markaa dhan a aan soo baxday balse qaabkan u xisaabin waxaa dhan 0 1 2 3 4 markii la dhahay negative laga hadlayo waxaa laga soo bilaabaa dhinacaas midig ayaa laga soo bilaabaa dhanka bidix ayaa loo wada tirada waxaa leedahay eeda ugu dambeyso ma dhehaysid markaas 1 m to 2 ma dhehaysid waxaa leedahay markaan -1 ayaa ka bilaabaysaa inta waxaa ka bilaabi jirnay 0 balse inta waxaa kasoo bilaabna waxa la yidhahdo -1 -2 -3 -4 hadda -4 waa xaggee j ay ku aadantahay sax. okay waxaa leenahay -4 waxaa noo soo bixi doonta filen j saaragtan waxaa noo soo baxay j ayaa markaas noo soo baxday. markaad dhinacaas kasoo tirinays waxaad adeegsanaysaa negative number ayaa adeegsanaysaa kama soo bilaabaysid -0 ma dhehaysid like waxaa leedahay -1 -2 -3 -4 qaabkaas ay xisaabta u wadaysaa haddii aad dhinacan ka bilaabaysna waxaa leedahay 0 1 2 3 qaabkaas ayaad u wadaysaa xafilaa taas in markaas si fiican aan iskula fahnay. waxaa ku xiga arki doona la yiraahdo slicing slicing markaasi muxuu noo qaban doonaa okay slicing waxaa sameyn doonaa waxaan leenahay print weli waxaa noo abuuran variablekan ayaa noo abuuran oo magacaasi noo hay ss loo magacaabo waxaan soo bandhigaynaa variablekaasi ss markaa dhahno weli indexki oo slicing ayaan ku jirnaa waxaan furaynaa markaas bracketka waxaa leenahay waxay noo soo daabicaysaa laga soo bilaabo 0 positionka 0 ama index 0 kasoo bilaabo index 0 markaas ah 1 inta kasoo bilaabana a 0 1 2 3 4 ilaa 4 noo soo bandhiga leenahay
ilaa iyo markaa dhida range aad sheegayso waxaa qabanaysaa shift kadibna xalinaan double colon ama colonkaas sameynayna kadibna xalinaan 4 enter ay leedahay waxaa noo soo baxay magacii waa 0 1 2 3 3 okay saa aragtaanba markaa xisaabanayna waa 0 1 2 3 markaa dhahnay 4 oo kuma daray sababta 4 wuxuu ugu dareen waa numberka meesha ugu dambeysay wixii markaas intaas u dhexeeya ayuu noo soo daabacayaa haddii aan ilaa d-da aan rabno waxaan ka dhigaynaa meeshaasi 5 ayaan ka dhigaynaa qaabkaas ayaa kusoo bandhigaynaa ka waran haddii aan u baahanahay jaamac oo kelina soo bandhigno waxaa leenahay waxaa ka bilowdaa okay maadaama kan aan dhahno waa 0 1 2 3 4 5 6 aa leenahay laga bilaabo 6 ilaa iyo waxaa geenaysaa kan ugu dambeeya markaasi oo ah 7 8 9 ayaa leenahay okay hal xab ay dheeraad ayaa ku direynaa si markaas tiraas oo noo xisaabin 10 ayaa leenahay kadibna waxaa leenahay enter waxaa noo soo baxay jaamac macnaha markaa 10 dhahayo 10 maahan meeshan waa 9 balse rangiga markaan sheegayno tirada ugu dambeyso ma xisaabsanaya asaga inta u dhexeysa ayuu fiirinaa oo keliya okay qaabkaas ayuu xisaabi karnaa markaas waxa la yiraahdo slicing qaabkaas ayaa loo xisaabiyaa okay sidoo kale waxaan fiiri karnaa haddii aan rabno axmed markii la soo daabacno balse markaan meesha aan dhahnay 0 ilaa 5 aan dhahnay 0 baa ka tagi kartaa waxaa qoraysaa ibr ayaa leedahay kadibna colon macnaha waxba kuma qoraysid positionkaas koowaad enter ayaa leedahay waa isku mid inaad 0 markaas ku cadeyso ama markaasi in aad asigoo banaan aad ka tagto okay intaa waxaan filaa inaad isla fahanay markaa waxaa kaloo arki doonaa waxa la yiraahdo counting methods counting method saan filaa cashirkii shalay waxaan ka soo qaadanay wax yar ayaan ka soo qaadanay qayb ka mid ah sidee markaasi ku xisaabi karnaa axmed variablekaasi ss oo axmed inoo hayo inta lengthigiisa ama inta uu ka kooban yahay sidee ku xisaabi karnaa shalay aan soo qaadanay haddaa xasuusato ama cashirkiina ugu dambeyn waxaa leenahay print kadibna waxaa leenahay functionka length ayaa adeegsanaynaa functionkaas gudihiisna waxaa ku qoranaa variableka kadibna waxaa leenahay inta ay leenahay axmed markaas wuxuu ka kooban yahay ilaa 10 taa hore ayaa usoo qaadanay qaabkaas ayaa loo sameeyaa kadibna waxaa leedahay inter ayaa leedahay 10 waa print function lengthkaas oo adeegsanaysaa bracketa gudihiisna waxaad geli doontaa ss ayaad gelinaysaa taa ayaa markaas waxaa loo adeegsadaa length sidoo kaleeto waxaa arkan la yihahda countiga waxaan ku xisaabinaynaa tusaalahaan haddaan dhahno print ayaa leenahay waxaa noo soo bandhigaysaa ss variableka ss noo soo bandhig kadibna waxaad xisaabinaysaa la yihahda count maxaa la xisaabinaa markaan waxaa xisaabinaa e meesha meeqa e ayaa ku jirto waxaa ku jirto saarigta hal hab ayaa ku jirto waxaa leenahani maadaama e ay tahay waxaa lahay string ay tahay waxaa qoraynaa markaa double quotation kadib e ayaa qoraynaa kadibna waxaa leenahani enter waxay noo soo baxay markii la xisaabiyey meeqa e ku jirto hal oo keli ayaa ku jirto okay haddii aan a fiirino meesha a waa 1 2 3 a ayaa ku jirto aan fiirino qaabka loo soo saaro waxaa leenahay markaasi a print variableka kadibna dot count of functionka ahay kadibna waxaad gelinaysaa wax markaas adiga aad raadinayso a oo ah waxaan aan u baahnay inaan helno kadibna enter ayaa leedahay waxaa noo soo baxay 2 okay sidee 2 ku soo baxday su'aal markaas muhiim ah meesha haddaa fiin hadirtaan variableka wuxuu noo yahay axmed jaamac python markii la taagan yahay waa very sensitive adan capital iyo a small laba ayay u kala taqaanaa marka a small qortid macnaha waxay raadinaysaa a small oo keliya ayay raadinaysaa balse markaa qortid a capital waxay raadinaysaa a capital okay waxaan raadinaynaa marka a capital waxaa noo soo bixi doona hal sa aragtaa waxaa noo soo baxay hal ayaa noo soo baxay taasna waxaan ku adeegsan karnaa markaasi markii aan sameynin wax la yiraahdo count sidoo kale waxaan arki doonaa wax la yiraahdo find wuxuu qabtaa positionka ayuu raadiyaa oo keliya okay aan iska tirtirno waxaa leenahay control l waxaan abuurinaa variable kaleta waxaa leenahay variablekan computer enter waxaan raadinaynaa markaasi p
bdaas oo penta ah indexka inta ayaan raadinaynaa si indexkeeda u raadin waxaa leenahay markaasi print waxaan adeegsanaa function markaasi lagu magacaabo find intaan find dhihin waxaan qoraa variablekii kadib waxaa leeyahay dot find waxaan raadinaa markaas p okay double quotation kadibna pdaas waxaa raadinaa indexkeed ayaa raadinaynaa markaas waxaa noo soo baxay 3 ayaa noo soo baxday haddii aan fiirno 3 sidee ku soo baxday kan ugu horeeya waa 0 kan ku xiga waa 1 mta waa 2 pdaas aragtaanba waa 3 qaabkaas ayaa ku soo saarnay haddii aan rabno ka waran haddaan rabno maxaan sameynaynaa waxaan leenahay markaa qorto waxaa noo soo baxay index numberka oo saxda ayaa noo soo baxay positionka ay kaga taala markaas variablekaas sidiis waxaa noo soo baxay index 6 in ay markaasi tahay soo far waxaan soo baranay markaas waxa la yiraahdo count find length oo ah qaybtaasi xisaabaadkan ku soo baranay countiska la sameynayo iyo markaa waxaan soo baranay sida markaasi loo sameeyo iyo sida markaasi loo sameeyo waxa la yiraahdo range qaabka loo sameeyo ayaan soo baranay iyo sidoo kale waxaan soo baranay sida markaasi loo adeegsado index positionka indexkan qaabka loo adeegsado fadlan haddii aad ka heshay cashirkan subscribe saar si markaasi aysan ku dhaafin videoska xiga haddii videoga uu ku qancina like na ha ka hilmaamin wixii talaa markaasi qaybta comment ku soo qor aad u mahadsantiin